السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو وناكسن داوديال وولالكين قيس. hooyooyinkii baan ilmaabtiyadii baan habaryarihii baan bacad baan taaganna isagaan u taaganna ma seexanno wax ma cunno fakarkiisa iyo hamigiisa iyo qamigiisa nagu maqan dhiiggayagaad kicinaysaa carruur baanu dhallay rag baanu dhallay hablaanu dhallay dal iyo dabad baanu isaga imanna xooggaan ku saarina ku talagalina muxtooda kugu soo gallo kaa soo saarno adigoo bisbis leh acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismillaahi raxmaani raxiim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما waxaan idinku salaamayaa dadweynaha meesha isugu yimi hooyooyinka meesha isugu yimi ee gobolka Togdheer khaasatan beesha bariga waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waligood ayaa diinta ay ka soo jirtay in lagu dhibo dadka muuminiinta ah waana lagu dhibay waa lagu itixaamay mudana madaxweyne hooya ku dhashay hooya guriga ku joogta arxan darrada inta iska daysaan adiga iyo dawladdaadu ninka madax banaanidiisa u soo daaya oo ilaahay ka baqa rabbigiin ka cabsada ninka madax banaanidiisa u soo daaya haddaan nahay beesha bariga burco ee ka soo jeeda hooyadii sida hagarliya ninkan ugu soo daa waxa weeye inta waa lagu baryayaa inta waa lagu eegayaa inta waa lagu la hadlayaa wax munaasib oo laga gaadhay ma jirto haye naxariisna shaqo kuma lihid diinna shaqo kuma lihid baadari baaba taageeraysaa baanu ku leenahay anagu madaxweyne diintana waa lagu dhimanaya haddaan qof ka hadhaynin cabdimaalig sidaa aad u gashay iyo si ka daran aad noo gelayso waanu ku dhimanaynaa diinta laa ilaaha ila allah maxamedow rasuulullah xaq baanu ku diriraynaa xaq baanu ku diriraynaa xaq baanu ku diriraynaa mudane waa inankaaga oo kale waa inankaaga ina muuse bixi oo kale weeyaan oo xaqa ilaahay fahansiiyey oo aan baadil shaqo ku lahayn ilaahay ayuu u gowracan yahay rabbi buu ku jira dayrkii ilaahay buu ku jira iska soo daa madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad bilaa shuruud ku soo dayso annagu ilaahay ayaanu baryaynaa rabbigiina lahaaba allihiina lahaa ayaanu tala saaranaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay cadowga ka soo furfuro waxaanu aragnaa inuu cadow yahay waxa haystaa waayo diintii islaamka lagu dhibaya waa kii lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof adduunyada oma soo baxo oo diinta oma gargaaro ilaa uudiya waa lagu dhibaa marka waxa weeyaan diintii baa ku dhibteen qowlkii ilaahay baa ku dhibteen xaquu u diriraya u hadlayaa ku dhibteen ilaahay ka baq يوم الدين باكو دنبايس ربغاغا ku aburta ka cabso ilaahay ka baq la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah naftu inay bari kugu gaariyeen kalma warbaad soo haysaa qabri yara 2 mitir ku dambeeya ilaahay ka cabso iska soo daa cadaaladda iyo kitaabka ilaahay ha lagu sii daayo tayadan oo hooyo oo gobolka reer Togdheera waxaanu isugu soo baxnay cadaalad darrada aad ku hayso Muuse Cabdi Maalig Coldoon hooyooyinkii reer gobolka Togdheer baanu nahay aadan cadaaladda ku hayn ee cadaaladda baalmarsan ee sharciga baalmarsan waxaanu kaa codsanaynaa shuruud la'aan inaad ku soo dayso sababta baadil buu ka hadlay baadil buu sheegay baadil baadna ku xidhay wax xaqa ama cadaalad ku xidhay ma jirto sidoo kale xukunka waxaan doonaynaa inaad ugu qaadi haday kulliba xukun u galayo xukunka inaad kitaabka ugu qaadi way qorrax casar joogtad maanta tahay madaxweyne ayaanu ku leenahay qorraxda casarka joogto si sharaf leh kaga tag dalka oo si sharaf leh ku xukum madaxweyne hooyooyinkii reer Togdheer reer Burco waxaanu la hadlaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi annagoo reer Togdheer ah oo fartayadii ku siinay oo ku soo saarnay oo ku dooranay haddaanu nahay beesha bariga bari waa meeshii aad ka soo baxday waa meeshii laga soo doortay maanta inaad kaadidaada ugu fooldhaqdo lagama sugayo madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa oo si sharaf leh kaaga codsanaynaa codsigii odayaasha waa diiday kuwii dhalinyarada waa diiday wax walba waa diiday islaamaha iyaga bacadka tuban waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne inaad si degdega oo sharaf leh oo xigmad leh inaad ninka ugu soo celiso xorriyadiisii waad soo celin weyday waxaad ogaataa Soomaaliland inay gamcahaaga ku burburayso ku talagal maxamed siyaad barraanu dhagax kaga saarnay madaxtooyadan kuugu imanaynaa hooyooyinkii baan ilmaabtiyadii baan
habaryarihii baanu nahay bacad baanu taagannahay isagaan u taagannahay ma seexanno wax ma cunno fakarkiisa iyo hamigiisa iyo qamigiisa nagu maqan dhiiggayagaad kicinaysaa carruur baanu dhallay rag baanu dhallay hablaanu dhallay dal iyo dabad baanu isaga imanna xooggaan ku saarina ku talagalina muctooyada kugu soo gallo kaa soo saarno adigoo bisbis leh cabdimaalig muuse coldoon xaqdarru ku xidhan yihin wuxuu u xidhaya cadaalad darro wuxuu u xidhaya xaq darro wuxuu u xidhaya diinta ilaahay baadireed buu u xidhan yahay kaadida ku fool dhaqata cabdimaalig muuse coldoon mudane madaxweyne madax meel ka sarayso la taataa ma jirta xaqii u soo celi maxay tahay kalsoonidiisii iyo xorriyadiisii inaad si degdeg ugu soo celiso ayaanu kaa codsanayn annagoo hooyooyinkii gobolka togdheera ee beesha bariya waa inaad si degdega maxamed cabdimaalig muuse coldoon u siidaysaa xorriyadiisii haddii kale adiga waxaad uga wareegaysid waxa haysta adiga iyo tolka ummaduna way leedahay annagu keligayo ma lihin waa la wada cadaynaya anaga xaqiiqada ilaahay baa ogaa adiga laakiin waa lagu cadaynaya in adiga ehliyada haysataan annaguna ehliyadaadi waa imeeno waxaan hooyooyinkii gobolka togdheer waxaan waalidiintiisii cadceedaasaan taagannahay karaamaanu leenahay qaar sooman baanu leenahay labada malayn kugu taagan baa annagana nagu taagan ilaahay haddaad garanayso ninkaas ka soo daa qoraa lagugu gabay wax le wuxuun baad cid gaarsiin lahayd wariya liibaane wafdi baad ku soo mar lahayd wiigii 2 jeer ma wacyi baa ku dhigac libaax yar waligaaba waxba hay xayaysin ninkan wagar ba dhaafayn maada wagar ba soo dhaafaya oo ilaahay ka yaab cadaalad ninku xukun aduu barina waa weeyaan aakhiro maantana waa iftiinka waxa weeyaan joogmeeno qorayno joogmeeso nin walba waa gado waa socod Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxa weeyaan adiga iyo wixii islaam waxaan ku ilaahay aqoonta ku soo celiyo way ka fogtay aqoonada way ka fogtay Allah ku soo celiyo aqoonada Allah ku soo celiyo ha ku waafajiyo xaq ha ku waafajiyo xaq uu ka fogiyay aad buu ka fogiyay ilaahay xaq ha ku waafajiyo anagana haddaan ku gefaynaano de ilaahay subhanahu wa ta'ala hana waafajiyo laakiin waxa soo loloonka keenay waxa soo lolo waxa keenay cabdimaalig baa keenay naga dami ololka naga dami dabka naga dami dhibaatada aad sameynaysaa ee aadna kululeysay adiga boqolka gaarsiisay